qofka laga helo rabitaanka xooggan ayay u suurta gashaa oo kaliya inuu helo waxa uu ka doonayo nolosha iyo qofka uu doonayo inuu noqdo intaba. adigu ahaan ma waxaad doonaysaa inaad sii ahaato sidii shalay aad ahayd? ma waxaad doonaysaa inaad ku sii dhex jirto samaynta caadooyinkan aan wanaagsanayn ee dib u sii dhigaya inaad hore u socoto ilaa caadooyinkani ay kaa gaarsiiyaan xilli aad kala garan weyso qofka aad doonayso inaad noqoto iyo waxa aad doonayso nolosha intaba? ma waxaad doonaysaa inaad maanta la mid dhigto shalay sidaad ahayd? haddaba jawaabtaadu waxay tahay ma doonayo sidaas inaan sii ahaado oo waxaan doonayaa inaan isbeddel weyn ku sameeyo hab nololeedkayga. soo sidaas maahan? haddaba kani waa muuqaalkaaga. assalaamu calaykum. ku soo dhawow janalkaaga hagaha nafta. magaciiguna waa qaasim maxamed, waxaan ahay saaxiibkaaga guusha iyo horumarka. 2021 waa sanad cusub, waana fursad cusub. waa waqtigii aan ka tallaabsan lahayn caado kasta oo dib u dhigaysa habnololeedkeena iyo inaan gaarno hadafyada aan ka leenahay nolosha iyo qofka aan doonayno inaan noqono intaba. waa waqtigii aan ku kasban lahayn cilmi iyo aqoon dheeraad ah. waa waqtigii aan ku bedeli lahayn caado kasta iyo dhaqan kasta oo aan wanaagsanayn, kuna kasban lahayn caadooyin ka wanaagsan iyo dhaqanno ka wanaagsan. inaad ku fikirto isbeddel inaad ku samayso fikirkaaga, dhaqankaaga iyo hamigaaga waa wax fudud oo qof kasta oo inaga mid ah uu samayn karo, balse waxaa lagu kala tegay ayaa ah ka go'naasho. inay kaa go'an tahay inaad beddesho noloshaada. qofka marka ay ka go'an tahay inuu hagaajiyo nafsadiisa ayay u suurtagelaysaa inuu ku noolaado nolosha uu doonayo iyo qofka uu doonayo inuu noqdo intaba. sidaa darteed isbeddelku wuxuu ka yimaadaa isla adiga gudahaaga. haddii lagaa helo rabitaan dhab ah, waxaa kuu xaqiiqoobi doona isbeddel degdeg ah inuu ku yimaado nafsadaada. dadka isbeddel doonka ah ee doonaya inay beddelaan noloshooda waxay ku qaadataa ugu yaraan 7 maalmood, 14 maalmood, 21 maalmood ama 30 maalmood. waxaa laga yaabaa inaad isweydiinayso, xaggee ayaan ka bilaabaa isbeddelka? soo sidaas maahan? hawalwelin, kani waa muuqaal loogu talagalay adiga iyo inta kula midka ahba. adiga ahaan waxaad ka kooban tahay jir iyo ruux. jirkaagu wuxuu quutaa uuna korriin ku sameeyaa cuntada iyo biyaha, laakiin ruuxdu way ka duwan tahay. waxayna ka heshaa kalsoonida, adkaysiga, samirka, naxariista, ku wanaagsanaanta ballanta, ka fogaanshaha dulmiga iyo yasida dadka, iyo wax kastoo ay ku qanacdo nafsadda ayna ku dareento farxad iyo reereen. waxay ka heshaa cibaadada alle, oo haddii aad ku dabaqdo nafsadaada aad dareemi doonto isbeddel degdeg ah inuu ku yimaado fikirkaaga, dhaqankaaga iyo hamigaaga. waa haddii aad ku dabaqdo nafsadaada oo ay kaa go'an tahay inaad isbeddel dhaba ku samayso noloshaada oo dhan. halkan waxaan kugu sidaa 4 tallaabo. tallaabada koowaad, ku xir naftaada alle. isbeddelka ugu horeeya ku samee ruuxdaada. xasiloonida iyo farxadda dhabta ah waxaa laga helaa ku xirnaanta alle. hagaaji salaadaha, kuna ilaali waqtiyadooda. duca badnow oo baahiyahaaga u sheego boqorka koonka maamula. la saaxiib qur'aanka oo u aqri si joogto ah. bixi sadaqada intaad awoodo. u naxariis badnow dadka jilicsan. ka farxi midka murugaysan. taageer oo caawi midka dulman. u fur qalbigaaga cid kasta oo cafi nafsadaada iyo dadka oo dhan. wanaaji filashadaada. intaas iyo in ka badanba ayaad ku beddeli kartaa ruuxdaada. oo xasuusnow hadalkii alla weyne, inna allaha laa yugayiru maa biqowmin xataa yugayiruu maa bianfusihim. oo macnaheedu yahay alle ma beddelo qoom ilaa iyagu
ay bedelaan nafsadahooda. sidaa darteed isbedelku wuxuu ka bilaabanayaa ruuxdaada inaad ku xirto rabbigeeda si ay kugu suurto gasho inaad gaarto nolosha waxa aad ka damacsan tahay iyo qofka aad doonayso inaad noqoto intaba. tallaabada labaad, bedel caadadan. qof kasta oo inaga mid ah waxay maalintiisa u soo bilaabataa xilliga uu ka soo tooso hurdada. sida aan uga kala duwannahay xilliyada aan ka soo toosno hurdada ayay nolosheena iyo guulaheena u kala duwan yihiin. marka aad akhrisato taariikh nololeedka dadka guulaha ka xaqiijiyay nolosha, waxay yihiin laba koox midkood. koox ka soo toosta 4 habeenimo oo loo yaqaano 10 saaceley, iyo koox ka soo toosta 5 habeenimo oo iyagana loo yaqaano 11 saaceley. sababta ay u soo toosaan xilli hore ayaa ah waxay qabsadaan howlaha ugu muhiimsan ee maalintooda, waxaana caado u ah in xilliga habeenka ay seexanayaan ay hoosta ka sii xariiqaan howlaha ay qaban doonaan marka ay ka soo toosaan hurdada. taasina waa waxa u sababtay kana dhigta inay noqdaan dad ka dhex tilmaaman dadka kale, nafsadoodana gaarsiisay halka ay u qalantay. adigana qaad mas'uuliyadda naftaada oo bedel xilliga aad ka soo toosto hurdada oo ku soo biir kooxaha aan kor ku soo xusnay oo ah inaad ka mid noqoto 10 saaceleyda ama 11 saaceley. kadibna waxaad dareemi doontaa noloshaada inay meel walba iska bedelayso oo aad noqonayso qof ku socda wadadiisa dhabta ah. tallaabada saddexaad, wax akhriska. waxaa tusaale kugu filan dadka maanta magaca iyo masabka sare ku leh dunida inay yihiin kuwa saaxiib dhow la ah wax akhriska. wax akhriska badan ayaa wuxuu kaa dhigaa inaad hesho macluumaad badan oo koriya maskaxdaada, kaana dhiga qof shakhsiyad wanaagsan leh oo caqli badan, garaadkiisuna sareeyo. la saaxiib buugaagta oo ka dhura macluumaadka ku kaydsan. caadadan wax akhris waxay kuu noqon doontaa mid aad mahdiso kana dhigto nafsadaada mid garasho badan. tallaabada afaraad, waxbaro. waxbarashadu waa mid ka mid ah furayaasha ugu muhiimsan ee ka guulgaaridda nolosha. waxbarashadu waxay suurto gelisaa waxyaabo badan oo aadan ku dhiiran karin marka aadan aqoonta lahayn. waxbarashaduna kuma koobna iskuul iyo jaamacad, ee waxaad kaloo baran kartaa xirfado ama luqado. u istaag inaad kororsato aqoon, hana ka caajisin waxbarashada. noloshuna marnaba ma joojin doonto inay kugu soo biiriso waxyaabo cusub. ugu dambeyn, isbedelka dhabta ah wuxuu ka yimaadaa gudahaaga, sida qalbigaaga iyo maskaxdaada ayuu ka dhex dhashaa. wax walbana waxaa ugu adag bilowga hore ama tallaabada ugu horeyso. hagaag, waxaan rajeynayaa inaad u istaagi doonto dabaqidda qodobadan aan ku soo qaadanay muuqaalkeena maanta. u tilaabo qaad isbedelka noloshaada. anigana waxaan kuu damaanad qaadayaa inaad mahdin doonto tallaabo kasta oo aan ku soo sheegay muuqaalkeena maanta. waxaa aad inoo xiiso gelinaya inaad ka mid noqoto hagaha nafta family oo ah hooy aan ku soo gudbino muuqaalo ku saabsan nafta iyo horumarinteeda, sida annagoo xoogga ku saarayna waxbarashada, guusha, jacaylka iyo guurka, iyo wax walba oo dhisi kara mooraalka bulshadeenna. haddii aad nagu cusub tahay, waa inoo farxad ku soo biiritaankaaga ee taabo badhanka guduudan oo ay ku qoran tahay subscribe. kadibna furo gambaleelka si aad u noqoto qofka ugu horeeya uu soo gaaro muuqaal walba aynu soo dhigno. lana wadaag asxaabtaada si aan u helno dad adigoo kala wanaagsan. waxaana kaaga mahadcelinayaa daawashada muuqaalkan. intaa goordhow ku kulmi doona muuqaalada soo socda, waxaan ku leeyahay aad baad u qurux badan tahay ee noloshaada ku qurxi samir, jacayl iyo dhoola cadeen. mahadsanid. خذ قرارا وانطلق لا تنتظر. ليس كل الناس أهل للعلا، ليس كل الناس أهل للعلا.